Asalaamu calaykum. Halkan waxaan idinkugu diyaariyey conversation qurux badan. Conversationkeena numberkiisa koowaad number one waxaan leenahay qofka magaciisa ayaan weydiini karnaa. What's your name? Magacaa. My name is Sophie. Magacayga Safiya waaye. Sidoo kale my name meeshaa ka adeegsatay waxaa adeegsan kartaa I am. Aniga Leym ayaan ahay. Two. Where are you from? I am from France. Sidoo kale meesha I am from dhahday waxaad dhihi kartaa I come from the UK. UK ayaan ka imid oon ka soo jeedaa. 3. Su-aasha saddexaad. Where do you live? Xaggee ku nooshahay? I live in Paris. Paris ayaan ku noolahay. How old are you? Imise sano ayaa jirtaa? I'm 26 years old. 26 sano ayaan jiraa. I'm 28. Adigoo ka reebay years old. I'm 28. 28 sano ayaan jiraa. Su-aasha shanaad. When is your birthday? Dhalashadaad waa goormee? My birthday is on January 1st. Dhalashadeedu waa bisha January 1deeda. 6. What's your phone number? Telephone numberkaaga waa maxay? My phone number is 61709832145. What's your email address? Email addresskaaga waa maxay? It is liam123@gmail.com. What do you do? Or what's your job? Maxaa qabataa? I'm a student. I work in a bank. I am unemployed at the moment. Hadda ma shaqeeyo. I work as a tour guide for a local tourist company. Waxaan u shaqeeyaa tourist company. Ayaan ugu shaqeeyaa qof xaafadda dadka soo kala tutuso. What line of work are you in? Shaqada qaybtee ka shaqeysaa? I work in sales. Waxaan ka shaqeeyaa qaybta saleska ayaan ahay. What company do you work for? Shirkadee u shaqeysaa? I work for an investment bank. Waxaan u shaqeeyaa bangi maalgelinta sameeya. Okay, thank you very much. That's done for our conversation today, and we are going to start number 11 for our next conversation lesson.